kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeedii garasho oo xalqadiisii labaad aynu maanta guda gali doono. barnaamijkeenan garasho waxa uu noqon doonaa barnaamij toos aad uga daawan doontaan telefishinka MMTV habeen kasta. barnaamijkan waxa maalgelintiisa iyo qurxintiisa leh shirkadda Sahal Taxi oo kamid ah shirkadaha dhinaca gaadiidka ee safarada magaalada dhexdeeda isaga kala goosha ee tagaasida. barnaamijkeenan ka qayb qaataha koowaad ee qaybta labaad ee barnaamijkeena waxay noqotay gabadh ugu horeen walaalo magacaaga ku soo dhawo telefishinka MMTV iyo barnaamijka garasho. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baa mahadsantahay waan ku dhawahay barnaamijka. magacayga waa Hodan Xasan Maxamuud. hodan ma ardayad baa tahay mise ardayad baan ahay ma jaamacad dhigata? sax. sanadkii imsaad baad maraysaa? sanadkii labaad. waa yahay hodanay barnaamijkan waxa la yiraahdaa barnaamijka garasho oo 3 marxaladood buu leeyahay. marxaladda koowaad waxa weeye 5 su'aalood hadaad garato waxaad heli doontaa lacag gaaraysa 250,000 oo shilinka Soomaaliland. marxaladda labaad waxay noqonaysaa hadaad garato waxaad heli doontaa 500 oo shilinka Soomaaliland. marxaladda saddexaad oo noqon doonta 850,000 oo shilinka Soomaaliland. marka 15 su'aalood ay ka koobantay. diyaar baad u tahay in aad barnaamijka toos aynu u furno oo gudo galno Soomaa? insha Allah diyaar. waa yahay barnaamijkeena aynu bilaaban doonaa toosna waynu u gudo gali doonaa computerka ku hor yaala deegi doontaa. ciidanka qaranka Soomaaliland goorma ayaa la aasaasay? ciidanka qaranka Soomaaliland waxa la aasaasay sanadii 1994 B sanadii 1960 C sanadii 1980 D sanadii 1995. ciidanka qaranka Soomaaliland waxa la aasaasay sanadii 1994 oo ah sanadii 1960 oo B ah sanadii 1980 oo C ah sanadii 1995 oo D ah. 3 marxaladoodna waa leedahay oo boqolkiiba 50 oo qaybna labana laga tuuray labana lagu reebayo iyo marxalad kale oo ah in laga caawinayo oo waxa ka caawinaya systemka computerka. marxaladda saddexaad oo ah inaad qof wacanayso qofkaasina uu ka caawin karo. laba dalbanaysa in laga tuuro. hodan labaynu ka tuuri doonaa. waxa kuu soo hadhay A oo ah 1994 iyo B oo ah sanadii 1960. waa waqtiga ciidanka qaranka Soomaaliland la aasaasay. marka A iyo B ayaa kuu soo kala hadhay oo kala ah 1994 iyo B oo ah 1960. in yar dhageystaha iyo qofka barnaamijka qayb qaadanaya baa loo ogoliyay inuu hadlo idinkoo raaliya. bismillaah su'aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa eeda oo ah 1994. waxaad dooratay 1994. waad hubtaa Soomaa? waay. hodan waxaynu eegi doonaa 1994. 1994 jawaabta su'aashaasi sidaas ay sax ku tahay shacabka. hodan ay su'aasha labaad aynu guda gali doonaa. kumuu ahaa yahuudigii nabiga sixray? kuma ayuu ahaa yahuudigii nabiga sixray? Cabdillaahi bin Salool B Uqba C Lubayd bin Acsam D midna. kuma ayuu ahaa yahuudigii nabiga sixray? A Cabdillaahi bin Salool B Uqba C Lubayd bin Acsam D midna. kuma ayuu ahaa yahuudigii nabiga sallallahu alayhi wasallam sixray? Cabdillaahi bin Salool oo A ah iyo B oo ah Uqba C oo ah Lubayd bin Acsam iyo D oo ah midna. marka hodan jawaabta su'aashaas adiga ay ku hortaala. bismillaah haddaan isku dayo su'aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa eeda oo ah Cabdillaahi bin Salool. Cabdillaahi bin Salool. hodanay fursad baanu ku siinaynaa
kuma ayuu ahaa yuhuudigii nabiga sallallahu alayhi wasallam sixray A Cabdillaahi bin Salool B Cuqba C Lubayd bin Acsam D midna saddex fursadood bay hadhay Soomaa laba fursadood baa ku haray oo ah mid in laga caawiyo oo computerku ka caawinayo iyo telephone inaad wacto oo qof la hadasho qofkaasina uu ka caawiyo marka labada fursadood baad haystaa hay bal computerka iga caawiyo waayahay computerka inuu ka caawiyo ayay dalbanaysaa hodan computerka inuu u dhiibnay hodan computerka ka caawinaya computerku wuxuu ku yiri oo ah Cabdillaahi bin Abu Salool boqolkiiba 8 cod ayuu ku siiyay B oo ah Cuqba wuxuu ku siiyay boqolkiiba 4 C oo ah Lubayd bin Acsab wuxuu ku siiyay boqolkiiba 84 D oo ah midnaba waxay wasiida Lubayd ha computerku waa tilmaamuno wayna tilmaamay marka inaynu ku raacno go'aanka computerka in kale adu ka hor yaala marka waad ku raacaysaa waayahay waxay dalbatay in si loo eego Lubayd bin Acsam sidaas sax ku yahay sacabka hodanay degmada Somaliland kala badha mar waxa weeye A kala baydh B waridaad C gooja cadde D badhan degmada Somaliland kala badha waa A kala baydh B waridaad C gooja cadde D badhan su'aashaada saddexaad degmada Somaliland kala badha Somaliland oo dhan dhex u ah oo kala qaybisa waxay noqonaysaa D-da waa badhan oo ah kala baydh baynu ku niri degmooyinka Somaliland kala badha waa A oo ah kala baydh B oo ah waridaad C oo ah gooja cadde iyo D oo ah badhan marka D oo badhan baa dooratay fursad kale aan ku siinayna badan hay eedaas oo ka kala baydh kala baydh way go'aankaaga ugu dambeeya eedaad ku adkaysanaysaa hodan waxay sheegtay in kala baydh aan jawaabta su'aashaasi u eegi doonaa jawaabta su'aashaasi sidaas ay khalad ku tahay waa B oo ah waridaad aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa hodan sida barnaamijka nagala qayb qaadatay mahadsanid qayb qaataha labaad ee barnaamijkeena oo kusoo dhaweynaya walaal marka hore magacaaga oo saddexan baad noogu bilaabaysaa waan dhawahay walaal magacaygu waa Axmed Iid Cusmaan Axmedow ma arday baa tahay mise waad dhamaysay goob waxbarashada may arday baan ahay sanadkan jaamacadda ku jira sanadkan bilaab Axmedow barnaamijka garasho ee shirkadda Sahal Taxi fudeyntiisa iyo gelintiisuba leedahay ka qaybgalkeeda sidaad u aragtaa aad iyo aad inuu fiican yahay waa barnaamij aqoon kororsiya lagana faa'iiday wax badan oo xaggii diinta iyo xaggii dhaqanka iyo xaggii historical taariikhdaba laga faa'iideysay way rajadaadu intee la eg tahay inaad barnaamijka kaga soo wada qaadaysin kara rajadaydu aad bay weyntahay waa maalintii koowaad in maado inkasta maalintii labaad barnaamijka waa tahay aad bay rajadaydu weyntahay insha Allah way saddex nidaam weeye barnaamijkeenu waxa weeye number 1 5 su'aalood oo koowaad hadaad garato waxaad helaysaa 250,000 oo shilinka Soomaaliland hadaad garato 10 su'aalood waxaad heli doontaa 500 oo shilinka Soomaaliland hadaad 15 garatana waxaad heli doontaa 850,000 oo shilinka Soomaaliland marka wadada intaas oo lacaga waxay naga soo shaqeysaa wadooyin badan oo rafo oo su'aalooyin inaga hortaagantay marka toos bing barnaamijku guda gali doona insha Allah computer kaas baad eegi doontaa insha Allah
sheeg maalintii uu dhashay nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam sheeg maalintii uu dhashay suubanaheeni maxamed sala allahu calayhi wasalam ee jimce b maalin arbaca ah c maalin isniin ah d maalin khamiis ah waxaad sheegtaa maalintii uu dhashay nabiyullaahi maxamed sala allahu calay wasalam keebaad markaa e oo ah jimce ah b oo ah maalin arbaca ah c oo ah maalin isniin ah iyo d oo ah khamiis yasro waxaan ku adkaysanaya walaal siida oo isniina maalin isniina maalin isniin ah waad hubtaa soo ma ha way su-aashaasi jawaabteeda waxaad dooratay c oo ah maalin isniin ah jawaabta su-aashaasina kuu eegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa waa halxidhaale tani magaalo cagaaran dhismaheeduna casaan yahay dadkeeduna uu madow yahay magaalo cagaaran dhismaheeduna casaan yahay dadkeeduna uu madow yahay e waa cinabka b waa xabxabka c waa cambaha d midna magaalo cagaaran dhismaheeduna casaan yahay dadkeeduna uu madow yahay e cinabka b xabxabka c cambaha d midna p oo xabxabka b oo xabxabka marka sidee bay niyo ku noqonaysaa magaalo cagaaran waa qoloftan sare xabxabka la jeedaa umaleeyay dhismayaasheedu waa casaan waa xabxabka qaybtiisa hoose ee la cuno ee casaanka dadkeenu madow yahay waa midhaha baan u maleeyaa marka sidaa xabxabka waayahay b oo ah xabxabka ayuu doortay axmed b oo xabxabkiinu u eegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay maxamedow kala barkii baynu soo gaadhnay oo 250 shilin bartankiisi baynu soo gaadhnay su-aasha saddexaad axmedow waxay ku odhanaysaa meeraha saddexaad ee qoraxda ku wareegaa waa meeraha saddexaad ee qoraxda ku wareegaa waa a mercury b neptune c venus d iyo earth waa meeraha saddexaad ee qoraxda ku wareegaa waa a oo ah mercury b oo ah neptune c oo ah venus iyo d oo ah earth marka meerayaashii malaawad kusoo dhigatay iskuulka way marka meeraha saddexaad kee buu noqonayaa earth buu noqonayaa dhulka earth oo ah dhulka dhiida marka waxaad leedahay meeraha saddexaad ee qoraxda ku wareegaa waa mercury oo ah a b oo ah neptune c oo ah venus iyo d oo ah earth marka saddex choicena waynu haysanay waad ogtay oo taleefon inaad wacato qof kaa caawiyo iyo in 50-50 oo labana laga tuuro labana lagu reebo iyo in computerku ka caawinayo midkoodna miinaan isticmaalin hadda saddexda ma isticmaalayo waqtiyada dambe u dhiganayna tan waan hubaa waad hubtaa soo ma d oo ah earth buu doortay d oo ah earth baynu u eegi doonaa jawaabtu sidaas sax ku tahay maxamedow guushiinii koowaad waxay nooga harsan oo kaliya hal su-aal markaa waynu taxadiraynaa su-aasha afraad axmed su-aasha afraad sheeg nafleyda aan ukun iyo ilmo toona foolan ukuntu waa beedka sheeg nafleyda aan ukun iyo ilmo toona foolan a dhadiga b libaaxa c labka d midna sheeg nafleyda aan ukun iyo ilmo toona foolan a dhadiga b libaaxa c labka d midna waa siid oo labka marka lab ukun iyo ilmo toona ma foosho marka saddexdaa kalena ma ku tijaabinaa mise waynu kaydsanaa saddexdeenii hore inaynu iska tuurinayo inaynu mise tan waad hubtaa
may haddii sheeg nafleyda aan ukun iyo ilmo midna toona foolan waa labka labka Soomaa waad hubtaa way afraadna waynu maraynaa Axmedow way jawaabta su'aasha ee labka ah ayaynu Axmed u eegi doonaa jawaabtu sidaas sax ku tahay Axmedow oo meeshii ugu xasaasineed baan maraynaa oo shanaada marka tan aynu ka taxadirno inuu aad uga fiirsano hadaynu xitaa ku khasaari karna saddexdeena doorashaynu leenahay chance caasimada wadanka Peru waa Caracas oo ah B oo ah Lima C oo ah Rio de Janeiro D oo ah midna caasimada wadanka Peru waa A oo ah Caracas B oo ah Lima C oo ah Rio de Janeiro D oo ah midna su'aashan yara adagtay marka chance-kii computerka way chance-ka computerku dalbaday Axmed aynu eegno mid chance-ka computerka aynu eegi doonaa caasimada wadanka Peru waa A oo ah Caracas B oo ah Lima marka wuxuu ku yiri A oo ah Caracas 16% B oo ah Lima wuxuu ku yiri 80% C oo ah Rio de Janeiro oo 2% D oo ah midna 2%. waan ku raacnaa ta computer oo B iyo 80% way computer ku ina tilmaamay marka ma tilmaamta computerka waynu ku raacnaa go'aanka inagu ina hor yaala moogta waan ku raacnaa way hadaynu de 5 marayno oo hadaynu jawaabtu xitaa computerku inoo saxo 250 ka ku shilinka Soomaaliland de baaqiga computerkana way nagu leey insha Allah waynu siinayna isaguna way waxaan ku eegi doonaa caasimada wadanka Peru waa Lima jawaabta su'aashaas aynu eegi doonaa sidaas ay sax ku tahay Axmed waxaad noqotay tartamihii koobaad ragga kamida oo 5 su'aalood garta shalay inan bay ahayd meel xasaasiya soo gaadho 14 su'aalood garatay oo hal su'aal oo kaliya uga harsaneed lacagteeni marka hadda waxaad ku guuleysatay 250,000 oo shilinka Soomaaliland marka go'aankana adigu hor yaala inaad tiraado ilaa iyo 850 kan gaadhaya oo meesha uu awoodeydu istaagto ayaan kaga hadhi doonaa marka miyaynu sii wadanaa mise 250 kaas ayaanu ku qornaa ma waan sii wadanaa inkastoo inay sugayaan Soomaa way waan sii wadanayna meeshu calafkeeni waqtigeenu ina dhigayno eegi way su'aasha lixaad ayaynu eegi doonaa Axmed hal caana maal waxa uu noqonayaa A hal saacad B 6 saacadood C 12 saacadood D 24 saacadood hal caana maal waxa uu noqonayaa A hal saacad B 6 saacadood C 12 saacadood D 24 saacadood waa D oo 24 saacadood hal caana maal 24 saacadood wadubta hal caana maal waxa uu noqonayaa A oo hal saacadood B oo hal saacadood C oo 12 saacadood D oo ah 24 saacadood marka D oo 24 saacadood baa doon way jawaabta su'aashaas ayaynu eegi doonaa Axmed 24 saacadood buu doortay jawaabta su'aashaas sidaas ay qaladkooda waa 12 saacadood waa ka xumay Axmedow hal caana maal waxa uu noqonayaa 12 saacadood aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalkaad barnaamijka nagala qayb gashay waxaad ku guuleystay 250,000 shilinka Soomaaliland 5 su'aalood baad garatay aad baad u mahadsantahay tartamada saddexaad ee barnaamijkeena garasho ay qurxintiisa iyo hirgelintiisa leedahay shirkadda Sahal taxi ayaa inala jooga magacaaga oo saddex walaal magacaygu waa Cabdirashiid Ismaaciil Umar Cabdirashiidow barnaamijkan inaad noqotay
qofkii saddexaad ee ka qaybgalaya qaybtiisa labaad sideed u aragtaa barnaamijku waa barnaamij fiican waana dee aqoon baa laga faa'iidayaa oo xaggii dhaqankii iyo diintii iyo juqraafigii iyo waxyaaba badan markaa waan soo dhaweynaya u fiican waay cabdirashiidow barnaamijkan san kuugu sheegayba waxa la sahal qurxintiisa iyo hirgelintiisaba sahal taxi baa isku soo dabariday marka meesha 15 su'aalood ayaa lagu weydiin doonaa 15 su'aalood waxay kala leeyihiin stage oo 5 su'aalood haddaad garato waxaad heli doontaa 250,000 oo shilinka Soomaaliland 10 su'aalood haddaad garato waxaad heli doontaa 500 oo shilinka Soomaaliland 15 su'aalood haddaad garatana 850,000 oo shilinka Soomaaliland marka diyaar baad u tahay inaad diyaar baan insha Allah computerkaasi eegi doonaa su'aalaha halkaas aynu kala soconaynaa su'aasha koobaad caasimadda Liibiya waa A Baghdad B Tripoli C Cadan D midna caasimadda Liibiya waa A Baghdad B Tripoli C Cadan D midna jawaabta bismillah waxa weeye waa D oo midna waa D oo midna hadda saddex fursad baynu haysanaayo boqolkiiba 50 laga tuurayo iyo in la inaga caawiyo iyo in qof wacno marka su'aasha ugu horeysa caasimadda Liibiya waa A Baghdad B Tripoli C Cadan D midna Cadan baan ka dhigay meel laba iga tuurba laban ka tuuraya way labaynu ka tuuraynaa Cabdirashiid B oo Tripoli wasi hubiyo waa midna D oo midna go'aanku aduu ku jira moogta tilmaamun buu inoo yeekanay eraygan waa Ingiriisi Carabi ma marka dhigidaasaan ku daysanay marka waxa la Tripoli waa Ingiriis iyo midnaad ku adkaysanaysaa way jawaabta su'aashaas inuu eegi doonaa Cabdirashiid sidaas ayay qalad ku tahay waa Tripoli oo aad ma santay Cabdirashiid aad ma santay barnaamijkeeni maantana saasuu ku xidhnaanayaa qaybtiisa labaad ee barnaamijka garasho oo qurxintiisa iyo hirgelintiisuba ay leedahay shirkadda Sahal Taxi intaynu barnaamijka xigo kulmi doono waa aniga iyo tiimka dhinaca farsamada igala qayb qaadanaya oo idin leh salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh